بسم الله الرحمن الرحيم. maanta in sha allahu tacaala waxaan jeclahay inaan ka sheekeeyo sheeko cajiib leh oo aniga run ahaantii iga yaabisay. sheekadaas waxaa weeye nebiga sallallahu calayhi wasallam isagoo maalin maalmaha ka mid ah wadada maraya oo lugeynaya ayaa waxaa ka hor timi islaan aad iyo aad u weyn oo duq ah oo duqnimo meeshii ugu dambeysay taagan, madaxeedii soo foorarsamay si wacanna aan u socon karin ayaa meeshii soo martay. hadhow islaantii nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa ku hor yimi, waxayna dhabarka ku wadatay xaabo xidhmo xaabaa oo ay doonaysay inay wax ku karsato ayay dhabarka ku wadatay. nebiga sallallahu calayhi wasallam markuu u yimi ayaa islaantii ayaa wuxuu sameeyey xaabadii ayuu ka qaaday, dhabarkiisuu saaray nebiga sallallahu calayhi wasallam. hadhow baa islaantii yaab iyo amakaag ayaa isugu yimi. maanta maxaa isbedelay? maxaa si ah? halkanaa iman jirtay, maalin kasta waa mari jirtay, xaabadaas ayaa wadan jirtay, qofna kuma iman jirin, kuma qaadi jirin. maxaa maanta isbedelay? maanta maxaa iga sii ah? hadhow nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa xaafadii iyo gurigii ayuu u geeyey xaabadii. hadhow bay fakartay, ninkan wanaagsan ee asxaankaa kuu falay ee 40 jirka ah ee asxaankaa kuu falay ee weyn talo maxaa ugu abaalgudaa? hadhow baa waxay ku tiri, niyow waxa anuu kugu abaalgudo ma hayo waxa kugu abaalgudo, laakiin waxaa soo baxay nin waalan oo xanuunsanaya oo la falay oo majnuun ah oo naweynimo sheegta. ninkaas yuu ku fitneene iska ilaali, magaciisana maxamed baa la dhahaa. hadhow baa intuu dhoola cadeeyey ayaa wuxuu ku yidhi islaantii, wuxuu ku yidhi, hooyo maxamedkaas iyo ninkaa la sheegayo waa aniga buu ku yidhi. ninkii la sheegayo ee naweynimada sheegtay aniga weeye. hadhow baa islaantii way yaabtay, caqligal maaha bay tiri, maalin kasta waddadaasaa soo marayay, dadkaasi way arkayeen inaan dhabarkayga culays ku hayo oo aan xaabo maalin kastaba aan raranahay. nin ka mid ah iimuu iman oo igamuu qaadin oo waxba ilamuu qaban oo halkaas ayaan marayay. sidee bay nimankaas bilaa akhlaaqda ee bilaa dhaqanka ninkan wanaagsan sidee bay wax uga sheegaan? islaantii way qaadan weyday, ninkan sidan ah xoogaa qalbigeeda markay ku celisay ayay nebiga sallallahu calayhi wasallam rumaysay. akhlaaqdu waxay gaadhaa meel uusan hadalku gaadhin bay gaadhaa. markaana saas ayaan isku ognahay insha allahu tacaala.